بسم الله الرحمن الرحيم. halkani waa madasha lixdanka oo aynu had iyo jeer ku falaqayno baaqilaada siyaasadda Soomaaliya. Waxa markii noogu ah siyaasiga weyn Ali Maxamed Ahmed Ali Daacuun oo isagu had iyo jeer aanu wax ka weydiino waxyaabaha ku soo kordha siyaasadda Soomaaliya. Ali ku soo dhawow madasha lixdanka. aad baan ugu soo dhawahay waana idin mahadnaqayaa sida aad wararka ugu tabisaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhisan xaqiiqda. waagaag Ali oo su'aashii ugu horeysa rabnayna ku weydiino waxa weeye wax ma nooga sheegi kartaa war murtiyeedka ka soo baxay madasha iyo 18 aqalka sare ee lagu soo kordhiyay. bismillaahi raxmaani raxiim. waxa hor yaala dastuurkiiba hor yaala August ayay kaga dhamayd madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu waa caretaker baarlamaanku way ka dhamaaday markaa waxaan ku oran karaa dawladii ma jirto horta waa wada caretaker weeye laakiin dastuurka waxa ku qoran aqalka sare waa 54 xildhibaan 54 xildhibaan gambal laguma dari karo nin laguma dari karo laba laguma dari karo saddex laguma dari karo maxaa yeelay dastuurku ku qoran yahay dastuurkuna baarlamaan buu u baahan yahay baarlamaanku way ammadmad ku sameeyaa ammadmadkaas dabadeedna wax lagu kordhin karaa 18 xubnood ee lagu daray warmurtiyeedka shalayto waa xaaraan maqtac ah waa waxaan waxba ka jirin waa waxaan dastuur waafaqsanayn waa wax iyaga jeebkooda ah wahayaag aliyo idinku madashaad u taqaaniine anigu mareegta ayaan u bixiyay mareegta wahayaag dalku dastuur ma laha mareegta ayaa u talisa marka hadday waxay doonaan ku darsadaan waxay doonaan ay ka reebaan maadaama ay markii hore ay 54 iyagu keensadeen maxaa ku diidanta dastuurku waa jira laakiin dalku ma laha madax baan ku idhi dawlad ma laha waa caretaker baan ku idhi August bay kaga ekayd waa caretakerna waa la yaqaanaa shaqadiisa laakiin dastuurkii waa jira dastuurkaasa xaalaantinimaynaya aliyow meeye hay'adihii ilaalin lahaa dastuurka ee ka shaqaysiin lahaa dalka dastuurka waa loo codeeyay baan ku yiri waa loo codeeyay iyaga oo mudanayaal iyadoo madaxweynaha iyagoo mandate baa loo codeeyay dastuurku ma raaci karo iyaga wuu ka hadayaa iyagu waa caretaker baan ku yiri caretakerna ma jebin karo wax ma samayn karo wax ma saxeexi karo wax ma maamuli karo wuxuba waa sharci darro qodobka 72 ayaa ii markhaati furaya inaan hal xubin lagu dari karin sidaa awgeed anigu dastuur baan soo qaadanaya idinkuna dastuurka akhriya marka 18 xubnood waa jeebkooda weeye shalay mudaaharaad baa ka dhacay xildhibaanada horaa ka hadlay kuwa dambaa ka hadlay berrina waa laga hadlayaa waa sharci darro maxaa yeelay 8 sanadood buu ku qoraa dastuurka qodobka 72 aqalka sare waa 54 waagaag waa fahanay aad baad u baasatay dhinaca kale xildhibaanadii iyaga la soo celiyay iyo beesha caalamku arinta aysan ka hadlin ka gaabsadaan maxaad u aragtaa iyaga xildhibaanadii inta sidii la lagu soo doortay la yiri waa la musuqmaasuqay la soo celiyay iyaga maxaad u aragtaa kuwaas guddiga khilaafaadkay u taallaa shalayto ra'iisul baarlamaanka u yeedhay Jawaari wuxuu yiri 60 nin ee mareegta ah ee Axmed Madoobe ka mid yahay ee uu ka mid yahay Shariif Xasan ee uu ka mid yahay Cabdiwali Cali Gaas ee uu ka mid yahay Hebel Asoble oo Jawhara ee uu ka mid yahay Xuseen Guuleed raggaas waxa ay u soo direen Jawaari guddiga khilaafaadka waxay yiraahdeen min xubin hal reebo oo guddiga khilaafaadku inta ku ekaadeen shanta kalena sii daaya gudoomiyaha guddiga khilaafaadku waa diiday wuxuu yiri beesha caalamka barashar lagu haysa markay ka diideen maanta loo yeeray galabta xasan sheekh waa fadhiyay kulligood way fadhiyeen waxay yiraahdeen idinku haddaad awoodiina ku laalaysaan ku laala laakiin annagu institution aad magacawdeen oo guddiga khilaafaadka baanu nahay waanu gudbinay beesha caalamka oo anigu aan u aqaano beesha lixaad ayaanu u gudbinay oo haysata wax aanu ka soo celin karaynaana male halkaasay makhribkii maanta istaagtay dhinaca kale
waxaynu ognahay in dagaalo ku socdaan maamulka Puntland dagaalada ku socda maamulka Puntland maxaa wax warad ka haysa wax waliba adeer bilow bay leeyihiin damaadna waa leeyihiin madasha sigisti maalin baad bilowdeen maalinna way dhammaan doontaa kitaabka ilaahay bay ku taallaa waxna sidoodii inaanay ahaanayn Puntland waxaa loo aasaasay dowlad Soomaaliyeed baa loo aasaasay inay ku gaadho Cabdullaahi Yuusuf baa madaxweyne ku noqday Prime Minister laba goorod Cumar Cabdirashiid baa ku noqday Cabdiweli baa markii dambena ku noqday waa Faransiiska waxaa lagu yiraahdaa Sivini Puntland burburkeedii baa taagan maxaa yeelay wixii loo aasaasay waxba laguma darine waxbaa laga dhibay dhaqaalaheedii baa la xaday dadkii wada dhistay ee Sooliya sanaag baa la dulmiyey xuquuqdoodii baa lagu takrifalay waxa isku soo haday Majeerteeniya isku soo haday mar haday Majeerteeniya isku soo hadayna waxa weeye wixii baa dhamaaday wixii loo aasaasay Puntland baa dhamaaday oo gebageba ah sidaana Faroole ila qaba oo sheegay Faroole waa hagaag haddaan u gudubno dhinaca kale maadaama aad ka hadashay Sooliya sanaag maxaad u aragtaa heshiiska ay maamulka Khaatumo iyo maamulka Somaliland ku wada galeen magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia qof kasta oo u dhashay Sooliya sanaag waxa leeyahay waan soo dhaweeyay idinkuna soo dhaweeyay qodobada laga hadlay siyaasadii kuma jirto waxa laga hadlay waxa weeye waa nabadgelyo waa kow waxa laga hadlay dispute area weeye dispute area yaa ka dhigay dispute area Sooliya sanaag Puntland baa ka dhigtay iyo Somaliland baa ka dhigtay dispute area in laga qaadana waa laga hadlay waxa laga hadlay in ciidamada Hargeysa ka yimi dib looga hadlo ama dib loo eego horta waa horumar maxaa yeelay Sooliya sanaag inay jabhad noqdaan oo ay dagaalamaan oo ay midoobaan oo ay maamul samaystaan waa diideen sababtay u diideenna wax kale maaha itaan darro gudahooda ah iyo iyagoo la kala xaday oo Puntlandna ay ku xaday hartibaynu wadanayo isku qoys baynu nahay kuwanina ay lacag u daadiyeen Somaliland oo marba Land Cruiser iyo hal suldaanba iyo 10 intay tagto xoogaa 100 loo soo qaybiyo intaasaa curyaamisay marka hadday maanta maamul heshay oo ay tiri Somaliland Khaatumo waan aqoonsaday oo la wada hadlay anigu waan soo dhaweynayaa wada hadalkuna halkaa kuma dhammaan mid saddexaad iyo mid afraad iyo mid shanaad iyo mid lixaad baa hadhay bisha January waxa lagu wada hadli doonaa Djibouti hadeednan ogeyn ana idin sheegaye markuu ka tidmaado haddana Ethiopia lagu wada hadlaya laga yaabay Turkiga haddana in la tago arrinkani waa arrin masiiriya waa la soo dhaweynayaa cidda Khaatumo diidan waa cid aan waxba ogeyn waa cid gardaran dadkaasaa la badbaadinayaa xabad baa laga badbaadinayaa waa hagaag koob iyo tobanka qodobka 8 wuxuu sheegayaa in xukun baahin lagu sameeyo deegaanadaas xukunka lagu baahinayo deegaanadaas waa xukun nooceeya xukunka lagu baahinayo deegaanadaas waa siyaasad weeye waa siyaasad xukunka lagu baahinayo waa Khaatumo iyo Somaliland waxay isla gartaan Khaatumo waa maamul la aqoonsan yahay Somaliland ma aqoonsatay haddii ay isku darsanayaan iyagay u taal hadday lama maamul kala noqonayaan iyagay u taal laakiin aan wada hadalno waa aan heshiino weeye wada hadal baa bilowday Somaliland kama hayno maamul Khaatumo aqoonsanay waxay yiraahdaan hadii jeer kooxda Cali Khaliif baan aqoonsanay arinta iyada ma waxa leedahay waa ka duwan taariikh sidaas YouTube-ka gal wasiirka warfaafinta Cadaani waa fadhiyay markii Sinaayo amray oo uu yiri Khaatumo aqoonso uu yiri Khaatumo waanu wada hadlaynaa maamulka Khaatumo waanu la wada hadlaynaa Somaliland iyo maamulka ugu dambeyn maxaad uga tagaysaa in madasha oo aad nagula talinaysaa waxaan idin kula talinayaa wadaniyiin noqda waxaan idin kula talinayaa raadiya runta waxaan idin kula talinayaa dalkani waa lumay doorasho dadban waxa weeye caqli dadban garasho dadban wadaniyad dadban xukun dadban iyo dawlad dadban dawladda dhismi doontaa waa dawlad dadban bay noqonaysaa dawlad dadbanina
dalka wax kordhin mayso intaasaan idinkaga tegayaa su-aasha aad i weydiisay kaasi wuxuu ahaa cali maxamed axmed cali daacuun oo aanu had iyo jeer madasha lixdanka uga waraysan ama nooga falanqeeya baaqilaada siyaasadda Soomaaliya anigoo Xuseen Fiida iyo nabadgelyo